wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada deegaanka mudane cabdilaahi aadan oo ay wehelinayaan madaxa xafiiska waxbarashada maamulka magaalada jigjiga ayaa dugsiga sare ee jigjiga oo kula kulmay maamulka dugsiga guddiga ardayda gelaysa imtixaanka fasalka 12aad ee sana dugsiyeedkii 2013 tirsiga Itoobiya guddiga waalidiinta ujeedada ayaa ahayd in wax laga ogaado sida ay ardaydu ugu diyaar garoobeen imtixaanka fasalka 12aad ee sana dugsiyeedkii 2013 tirsiga Itoobiya ayaa la qaadi doonaa 29 bisha Diqamti waxaana imtixaanka u fadhiisan doona 20211 ardayda gelaysa imtixaanka fasalka 12aad sana dugsiyeedkii 2013 ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen galitaanka imtixaanka ayna ka faa'iideysteen fursadihii waxbarashada dheeriga ah ee la siinayay imtixaanka sanadka waxaa naga baajiyay xanuunka COVID-19 laakiin 2014 la qaaday imtixaanka 2014 imtixaanka hal la qaado laakiin waxa dhacday in ardaydii gobolada deegaanka iyo geega Soomaaliyeed ay u kala baahan ay matqaanay dalxiis iyo qaab family booqasho ay ku kala maqan yihiin marka hadda waxaan bilownay in abaabul ah baraarujin ah in imtixaanka loo diyaar galoobo waa talabaado in diyaar galow qaabka imtixaanka loo galayo iyo qaabka su'aalaha ardaydu ugu gudbi lahaayeen xafiiska waxbarashada wuxuu sameeyay macallin TV wax la dhaho online wax lagu barto ama gurigaaga joogo TV-ga aad xilliyada qaar wax ka baran karto diyaar galow ahaan dugsiga sare uu wanaagsan yahay aad buu wanaagsan yahay waayo ka guddi ahaan oo ka dhisan yahay oo guddi baraarujin sameeyna aad buu ugu badan yahay awaamirta maamulkuna aad buu hirgashaa marka diyaar galow ahaan dugsiga sare aad iyo aad buu u fiican yahay 2014 waxaan dhalinyarada deegaanka iyo ardayda deegaanka iyo ardayda geega Soomaalida ku nool ee SRTF wax kala socota waxaan ku baraarujinayaa ka Diqamti imtixaankii la qaadi doono waxaan nahay ardaydii sanadkii hore 2013 imtixaanka gelisay final examka ee 12aadka sabab awgeed COVID-19 ayaa hakad nagu sameeyay taa awgeed baan ayaan imtixaanka u gali weynay walo imika sanadkan 2014 ayaanu galinaa daleeda insha Allah waxaan rajaynayaa diyaargalowga aad u fiican weeyaan maadaama makeup class habla ahaan waxa jirtay in sabti xadan qaadan jirnay makeup class ko ardayda haween kaliya sabti xadan dhigan jireen oo san uga caawin imtixaanka aan natiijo fiican heli lahayn alxamdulillah laakiin diyaargalow aad u fiican baan ugu jirnaa admissionka baan qaadanaynaa ardaydu waa kuwa diyaar alxamdulillah waxaan sugaynaa natiijo wanaagsan helna imtixaanka duulahayda insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu imtixaanku hadda noo bilaaban doono kulli waxyaabo badan baa jiray oo diyaar garow ka mid ahaa oo sameeynay oo ka mid ahayd ardaydu inay librarians isugu yimaadaan wax akhristaan aqoon isweydaarsi iyo akhris fara badan oo diyaar garowga imtixaanka saan uga gudbi lahayn maadaama waqtiga ugu badnaa uu naga qaatay COVID-19 waxaa jiray sidoo kale makeup class iyo sabti xadda la bixin jiray oo ardaydu ay ka faa'iideysan jireen oo iska kaashadeen xafiiska waxbarashada iyo maamulka dugsigu saan arday lagu gaarsiin jiray iyo macallimiin badan oo saad qaantay ay ku jireen oo adoo arday lagu gaarsiin jiray marka diyaar garowgana uu kulli akhris buu badnaa iyo makeup classkaas waxaan insha Allah ku rajaynayaa imtixaanka hadduu rabraali ka noqdo inaan ka gudbi doono wasiir ku-xigeenka ayaa warbaahinta u sheegeen ka xafiis ahaan ay dadaal dheer iyo geliyeen sidii ardaydu natiijo wax ku ool uga keeni lahaayeen imtixaanka saan ogsoonahay sanadkani 2014 bisha Diqamti 29keega waxaan qaadi doonaa imtixaanka fasalka 12aad sanad dugsiyeedkii 2013 ayaan qaadi doonaa marka imtixaankani saan ogsoonahay waxaa soo diyaariya xafiiska waxbarashada heer federaal ayaa soo diyaariya marka xafiiskaasi markuu diyaarsho kadib wuxuu u gudbiyaa deegaamada ayuu u gudbiyaa marka deegaanka Soomaalida oo kamid ah deegaamada dalka wuxuu sanadkan imtixaan ka qaadayaa ardayda fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2013 ay tiradoodu dhan tahay 20211 arday ayuu ka qaadayaa marka xafiisku iyo xafiiska heer qaranba labaduba wixii diyaar garow loo baahnaa way sameeyeen marka waxa loo baahan yahay gobolada iyo degmooyinka in ay hawshaas hadda ka horna wixii awaamir ahaa waan u dirnay gobolada kulanaan la qaadanay degmooyinka awaamirtii waan u gudbinay marka waxa loo baahan yahay dugsiyada iyo degmooyinka guddiga waalidiinta ardayda imtixaanka maadaama la qaadayo 29ka bisha labaad ee Diqamti 29keega maadaama la qaadayo in ardaydu ay diyaar ahaadaan saaka waxaan la kulanay dugsiga high schoolka ku yaala maamulka magaalada Jigjiga ayaan la kulanay marka ardaydii aan saaka la kulanay waxay ahayn guddigii waalidiinta guddigii ardayda iyo maamulayaashii iskuulka ayaan la kulanay marka waxay noo sheegeen intuba in ardayduna ay diyaar tahay
saaxiibadooda kale ee maqan admissionka wali aan qaadanay u sheegi doonaan admissionka qaadan doonaan ayaguna inta muddadaas ay akhrisan doonaan ayay noo sheegeen waalidiinta sidoo kale waxay noo sheegeen ardaydooda inay diyaarinayaan maalinkaas imtixaanka si nabadgelyo ah firfircooni leh ka go'naansho leh inooga qayb qaadanayaan ay noo sheegeen